Taallada diyaaradda dagaal ee saaran khayriyada magaalada Hargeysa ayaa lagu samayn doonaa dib u habayn ballaadhan dhawaan iyadoo laga bedeli doono naqshada ama qaabka ay haatan tahay sida uu sheegay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Solteko oo hadal ka jeediyay munaasabada lagu dhagax dhigayay dib u habaynta taalladani sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay agaasimayaasha shaqo qaran iyo madaxtooyada Somaliland mudane muwaadinka iyo mudane Maxamed Cali Bile dhismihii museumkii qaranka oo la dhigi doono taariikhdii Somaliland oo dhan inaan uga faa'iideysano barxadan baanka hortiisa oo ay ku taalay diyaaradii qaranka Somaliland ee airportka ka kacday hushaysay in isla halkan looga faa'iideysto iyo diyaaradiina lagu celinayo in barxadii ay fadhiisanayeen ardayda dadka soo booqanaya oo imanaya muxuu ahaa museumka taariikhda inay halkan fadhiistaan ilaahay jannadii ka waraabiyo waxaan halkan uga mahadnaqaynaa leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo maayir cawl oo ahaa maayirkii noo dhigay diyaaradda iminkana wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa barxad weyn oo museumkana ay fadhiistaan ardaydu iyadoo diyaaradana la saari doono qaabka quruxda badan ee halka ku arkaysan ay noqon doonto aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi goobtan ama miidaankan waa miidaanka taariikhda Somaliland daada yaroo dhami kama warhaya wax far badan oo taariikha qaar badan baa isweydiiyay diyaaraddan qudheedu waxay tahay jiilba jiil buu bedelayaa waxaa jiri doontaa markaa miidaankan maadaama museumkii iyo diyaaraddu halkan yihiin goob taariikhda lagu xuso oo dhalinyarada dambe iyo jiilalka dambe soo socda ay ogaadaan taariikhdooda iyo halkay soo martay iyo dhibaatadii jirtay si ay ugu faraadeeyaan qarannimadooda marka miidaanka sidaa la tilmaamay boorka ku taalla miidaan qurux badan oo taariikhda lagu xuso Somaliland ku noqon doona waxba iska bedeli doona qaabka diyaaradda iyo sida ay tahay muddo dheer bay saaray dayactir bay u baahan tahay in la dayactiro si aanay u soo dhicin iyada qudheedu oo dabaylaha iyo roobabkii wixii kala dambeeyay muddada dheer wax kale waxba yeelayaan marka insha Allah maanta waxa weeyaan dhagax dhiga hawshii baana bilaamaysa miidaan qurux badan ayuu noqon doonaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim sida hore loo sheegay maanta waxa la daafurayaa taallada diyaaradda oo qayb ka ah museumka dhismihiisa socdo oo noqonaysa sida maayirku sheegay meesha ay ku nasanayaan dadku dhalinyarada ardayda cid kasta oo meesha marka aad bay mahadsantiin diyaaradda bartamaha Hargeysa saaran ayaa ka mid ah diyaaradihii lagu duqeeyay magaalada Hargeysa sanadii 1988 iyadoo sababta meesha loo saarayna ay tahay in lagu xasuusto wixii loo soo maray dalkani si ay uga warqabaan jiilasha soo socda ee reer Somaliland